صدقنا بحيو أبقين وليقا صدقنا بحيو أبقين وليقا كفترادي تكادا بقول قاتل إيسان غريبا وتليسان كفترادي تكادا بقول قاتل إيسان غريبا وتليسان صدقنا بحيو أبقين وليقا صدقنا بحيو أبقين وليقا كفترادي تكادا بقول قاتل إيسان غريبا وتليسان كفترادي تكادا بقول قاتل إيسان غريبا وتليسان wadarkiisaan dhismihii u socdaa alxamdulilaah si fiican buu u socdaa waa idinkaa arkaya insha allahu tacaala inta hadhayna way iska dhammaystirmi doontaa dee dadaal naguma yaraa aad iyo aad baanan maanta noogu faraxsannahay inay nagala soo qayb galaan oo nala arkaan maamo xaliimo british iyo xuseen wadaadyare oo ah guddoomiyaha madasha iskaa wax u qabso somalilan ay ku midaysan tahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan muuqaalkan maanta ay nala wadaagaan walaalaha iyaga reer somalilan arkaanna moogta waxqabadka iyo siday moogtahay xanaanadii ay iska kaashadeen xildhibaan barkhad jaamac batuun iyo xaliimo british aad iyo aad baa xaliimo aan kugu soo dhaweynaynaa halkan inaad aragtid hawshii aanu kaa xil qaadnaaniyo suldaan daakir inay meeshay mariso oo dee waana waajib in laisla socodsiiyo kolba xaaladdu siday tahay iyo meesha ay mariso aad nala aragtaan xaliimo british oo agtada taagan waa gabadhii runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala khayra siiyo hiilka iyo runtii ay Soomaaliya u hiilinaysay iyo dhibaatadii runtii inaga soo gaadhay koonfurta ka dhiidhiday barkhad jaamac batuun ku wareejisay 20,000 barkhadna uu sameeyey hindise fiican oo aad iyo aad u qiimo badan oo wanaagsan oo annaga ka salaadiin ahaan ka boqor ahaan baan ku taageernay oo ahayd inaanu hantidaas isagoo aanu gaadhsiisanin ama aanu qaadanin ee uu sameeyo xanaano umulisooyinka iyo danyarta ku dhaqan gacan libaax ama ku dhaqan daami si ay magaranaysaa awlaadooda yaryar iyo magaranaysaa nafahooda ay ugu badbaadiyaan in loogu dhiso xanaano isna 10,000 buu ku daray hawshii anaga iyo boqorka loo xil saaray inaan dhamaystirno anaga iyo boqorkana alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan soo gaarsiinay halka aad arkaysaan hadda toole de waxaan ogeysiinaynaa ama u sheegaynaa mujtamacii naga dhur sugayay inay hawsha halka marayso insha Allah tacaala wax yarna ay noo hareen ilaahayna ka rajaynayna dhammaystiranto waxaan ballan qaadnay isla maalintii go'aankaasi ay hal ku qaateen waan ku farxnay waan ka jawaabnay anagu maalintiiba waxaan ugu jawaabnay inaanu anaguna haddaan nahay iska xog qabso aanu qalabaynayno waana qalabaynaynaa waxa la leeyahay waxa qalab u baahan yahay annaga waa soo dhigaynaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan mataqaanaa sarraha hal container marka soo diri doonaa dalka Sweden insha Allah wuxuu iman doonaa sanadka soo socda iman doonaa isku marba dhimaan doona insha Allah xanaanadu si qorshuha laba hab oo waafaqsan habka koobaad wuxuu noqonayaa habka ay u diyaarisay wasaaradda caafimaadka oo u dejiyay injineeradeedu habka labaadna waa ka caalamiga la isticmaalo si halkan ka ari kartaan waxaan u sameynay 4 qol oo noqon doona kuwan naga soo horjeeda mid wuxuu noqon doona store-ka wuxuu noqonayaa qolkaas wax lagu kadin doono midka labaad waa EBS-ka waa qolkan midka saddexaad waa midwifery-ga oo noqonaya qolkan kan oo lahaanaya qolka loo delivery qolka waa kii midwifery-gu fadhiisanayeen kaasina waa kii delivery-ga ahaa ee lagu sameeyay qaliinka amba markay laga umulinayo halkan labada qolood ka arkaysaan waxay noqonayaan labada qol office-ka iyo reception-ka
sidoo kale waxaan halkan ku diyaarinay waad aad u ballaaran oo cabirkiisu gaadhayo 8 mitir iyo dheeraad ku dhawaan 9 mitir ahaa waxaan ugu talagalnay habkii ugu fiicnaa baan u sameynay dhisaankii ugu fiicnaa saakaari kartaan 3D-giisa waliba hadda kan waxa weeyaan 3D halkani kulli maanta waxaanu u nimidoon inaanu shaqadii halkay marayso hawsha halkay marayso ka war helno oo aanu isla eegno xagga engineeringa kolka kulli sidaasaanu ula socon doonaa haddii ilaahay yidhaahdo annagoo labadaasi dhinac ka eegna xagga engineeringa iyo xaggii meel functional ahoo dee shaqada loogu talagalay dhismaheedii lagu salaynaya ay noqoto kolka kulli maalinta hawsha ay dhammaatay ee xadhigga laga jarayo maalintaas unbaa tiyo qurux badan arki doontiina kulli imika waa qabyo insha allahna ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan inay inoogu dhammaato oo dee loo qalabeeyo